Bismillah, alxamdulilah, allah mahad iskale walaalayaal. Meel walboo joogtaan soo dhowaada. Alxamdulilah walaalayaal, waxaan rabay inaan waxyar ka sheekeeyo dad badan oo ka mid ah dadka ku taxan janaalka. Waxay soo codsanayaan biology form 1, chemistry form 1, biology form 3 aan arkay codsiyadaas. Marka walaalahaygaas waxaan u sheegayaa walaalayaal, annaga markaan fiirinay baahi ayaa jirtay. Baahida maadooyinka dhan waa wada bixi karnay, laakiin baahida ugu weyn oo dadka inta ugu badan ay soo dalbadeen waxay ahayd labadan maado oo galaaska form 4 ka ah iyo chemistry oo form 1 ka ah. Marka saa darteeda kuwaas ayaan soo hormarinay maadaama ay dadka iyaga u bateen dadka inta badan janaal ku xiran ay dhageystaan. Saa darteeda ayaan marka saddexdaas qaybood u doorbidnay. Kuwa kale waan soo deynaynaa, laakiin insha allah markaan kuwaan dhammayno ayaan soo deynaynaa. Waayo anigu aadan u mashquulsanahay. Mas-uuliyadda waxay u baahan tahay maado walba soo duubitaankeeda mas-uuliyad ay u baahan tahay, joogteynay u baahan tahay. Marka saddexdan maado ayaan markaan fiiriyey joogtay karaa. Waayo maalintii oo dhan xataa ma duubo, waan mashquulsanahay. Waxaan duubaa waxay tahay anoo maalintoo dhan shaqaynayo taagnaay, subaxii ilaa maqribkii anoo taagnaa ayaa habeenkii soo duubo. Kaaga daran subaxii soo kale alasaydi ayaan intaan ka soo kaca oo waqti hore aan habeenkii intaan ka soo kaxadane aan sii duubaa. Marka anigoo duruuftaas ku duubay saddexdan maado, waqtiga aan duruufta aan ka hadlayo waa waqtiga xaggiisa, waqtiga xaggiisa duruuftaas ku duubay maado kale ma ballan qaadi karo. Marka walaalahaygaas marka saasaan sheegaa. Insha allah kuwa markay dhammaadaan ayaan isku dayi doonaa inaan insha allah soo dayn haddii ilaahaymo. Ogeysiiskaas intaas ugu gudbaa. Bismillah, maanta waxaan qaadanaynaa haddii ilaahaymo 1.3 isomerism of alkane. Ereyga isomerism waxaa loo yaqaanaa wax isku mid ah ayaa loo yaqaanaa. Iso means equal ayaa loo jeedaa. Waaye isomerism are defined as waxaa lagu qeexaa molecules waa molecule with maxay leeyihiin same formula, qaacido isku mid ay leeyihiin, but like different structural formula. Waxay ku kala duwan yihiin laakiin naanaysta isku mid ay ka yihiin. Naanaysta maxaa waa number of carbon iyo number of hydrogen isku mid ay kala yihiin, laakiin different structural formula qaacidadooda kala duwan. Qaab dhismeedkooda kala duwan. Qaab dhismeedkooda maxaa waaye qaabka ay u yaalaan ay isku qabsanayaan ayaa kala duwan. Because maxaa yeelay of their different structures, qaab dhismeedyadooda aad u kala duwan ayaa sabab u ah isomeriska. Waxay leeyihiin marka waxaan ugu wacan inay saa sameeyaan qaab dhismeedyadooda oo kala duwan. Isomeriska waxay leeyihiin different properties, astaamo kala duwan ay leeyihiin. Indeed ahaantii they are iyaga different compounds, waa isku dhise kala duwan. waa alkanes kisabid waxay soo bandhigaan jane silsilad isomerism ay soo bandhigaan, silsilad loo yaqaan isomerism ay soo bandhigaan. For example, tusaale haddii aan soo qaadan uu leeyahay butane, haddii aan soo qaadan uu leeyahay waa qaabkan normal molecular formula waa sidaan, normal butane waa sidaan, isobutane waa sidaan. macnaha hadda qaacidada markaan fiirino maadadan butane markaan fiirino walaalayaal oo buug uu tusaale u soo qaadanayo, waxay haddii aan soo qaadano mar maxay u qoran tahay sidaan ay u qoran tahay, mar waxay u qoran tahay qaabkan u qoran tahay, marna waxay u qoran tahay qaabkan. waaye midaan waxaa dhahay normal butane waa butane caadi, midaan isobutane u dhahay. marka maxay ku kala duwan yihiin labadaas? bal aan fiirino xoogaa buug example case aan sharaxno xoogaa. haddii aan soo qaadano butane CH3 CH2 haye CH2 kale CH3, marka 1 2 3 4 normal butane waa maxay noqdeen fiir. marka structurekeeda magacaabideeda waxay noqonaysaa marka la magacaabayo butane caadi noqonay. marka la magacaabayo waxay noqonaysaa butane. kaarboonada 1 2 3 4 kaarboon kaarboonada waa 4. hydrogen 3 2 ku dar meeqa waa 5, 2 ku dar meeqa waa 5, 2 ku dar waxa waaye 7 sama, 7 3 ku dar 10. magacaabida maxay noqotay butane. magacaabida
maxay tilmaantaa structure qaabku qorayn tilmaanta magacaabida waaye mar kale haddii aan soo qaadano ch3 ch inta ku dhaji ch3 ch3 maadada marka la magacaabayo magacaabideeda waxaa loo yaqaanaa isobutane waa iska daa waa trafial namekeedi waa 2methyl propane amaba isobutane waa dhigi kartaa isku mid waay laakiin waa trafial isobutane magac hore waay 1 2 3 ujeedaa kaarboonada til marka 1 2 3 4 kaarboon kaarboonada guud ahaan marka la joogo isomerism markaad joogto saajinka iyo kan kale wax dhan waa isku darsanaysaa iska ilaali waaye 4 kaarboon hydrogenada meeqa waa 3 hal ku dar 4 4 3 ku dar 7 7 3 ku dar waa 10 marka 4 kaarboon iyo 10 hydrogen iyagana waa qaabkaas ay ku imaanayaan iyagana marka sida caadiga aan uga hadlayno guud ahaantoodaba waaye hay garanay inaad fahanteen aan jeclahay waayo mar 2methyl propane intana butane waa 2methyl propane iyo butane structure isku mid ma different structure waa laakiin maxay isku mid ka yihiin same formula qaacidada isku mid ka yihiin laakiin maxay ku kala duwanaadeen qaab dhismeedka ku kala duwanaadeen kuwa noocaas camal waxaa loo yaqaanaa isomerism loo yaqaanaa waaye waan socono waqtiga ayaa inahaye waaye intaasi kadib haddii aan sii socono waaye intaas kadib haddii aan soo socono example 1 ayuu soo qaadaro sawir the 5 isomers of hexane intaan gelin ka hor warkaan aan ka hormarin the first 3 members saddexda xubnood ee ugu horeysa of alkanes have only possible structures waxay yeelan karaan qaab dhismeedyo macquul ah ayay yeelan karaan therefore sida darteeda the number of possible isomers tirada isomerka ee macquulka ah ee of other alkanes alkaniyada kale is calculated waa lagu xisaabiyaa by this formula qaacidadan lagu xisaabaa 2 ku jibaaran n negative 4 plus 1 ayaa lagu xisaabiyaa war halkaasoo n ay ka weynaan karta amaba ay la mid noqon karto 4 n waxay ka weynaan kartaa amaba ay la mid noqon kartaa tirada 4 macnaha kama yaraa karto macnaha 4 kama yaraa karto laakiin way ka weynaan kartaa 4 inay la mid noqoto iyo wixii ka weyn laakiin 4 ma ka hoos mari karto macnaheedu waxaan ugu wacan saddexda xambo ugu horeysa oo methane iyo ethane iyo propane saddexdaasi ma noqdaan isomer ma sameeyaan maadaama saddexdaas isomer aysan sameynin n waxaa waaye 4 ay ka bilaabani 4 ay la mid noqonay iyo wixii ka dambeeyo sidaas loo jeedaa qaacidadina fahantaa jeclahay and it indicates waxayna cadeynaysaa the number of carbon atoms tirada kaarboonada ay cadeynaysaa note ogsoonow this only possible up qaabkan qaacidadan kaliya waxay ku dhaqangeli kartaa this is can only applicable qaacidadan waxay ku dhaqangeli kartaa un kaliya to 7 carbon atoms 7 carbon kaliya ku dhaqangeli kartaa waaye waa kana marka hal mar jadwalkan aan soo qaadano qaacidadan proof gradina kadibna naqshada maadadan sawirina insha Allah waaye maxaa fiiri jadwalka hal mar fiiri name magaca waa kana molecular formula waa kaasa qaacidada waa taas oo alkanka guudaha marka laga hadlaayo condensed structural formula marka uqrin waa kuwaasa number of possible isomerka noqon karta waa taas marka maxaa waa saddexda ugu horeysa ma noqon karaan xariiqin ma aha macnaheedu butane ugu horeysa meeqay leedahay 2 isomer waxaa ku xigta propane 3 isomer ay leedahay maya butane ugu horeysa 2 isomer pentane ku xigta 3 isomer hexane 5 heptane maxaa waaye 9 octane meeqa 18 nonane 35 decane 75 qaabkaas ay ku kala yeeshteen waaye aan proof gareyn marka qaacidadii hal mar aan idinku tuso oo aan proof gareyno aniga oo waqtiga insha Allah ka faa'iideysan doono qaacidada waxaana la isomer qaacidada waxa waa 2 ku jibaaran n negative 4 plus 1 waaye maxaa marka n10 ugu horeysatay ka bilaabanaysaa 4 oo butane waayo saddexda kalma noqdaan aan Allah marka n-teeda ugu horeysa waxay ka bilaabanaysaa 4 ay ka bilaaban ku proof garey qaacidada marka
butane meeqa isomer ay leedahay buug uun dhahay jadwalka 2 isomer ay leedahayna la sama waayahay aan soo qaadan marka walaalayaal ku proof gareynayna 2 afar soo qaad marka 2 ku jibaaran afar waayo inteed waxay la mid tahay afar ay la mid tahay afartii oo waxaa ka jirtaa qaacidada ahayd +1 waxay la mid noqonayaan inta marka intaas waxay la mid noqonayaan haddii aan soo qaadano 2 horseed ugu soo qaad afar ka jar meeqa waa 0 +1 laba ku jibaaran scientificadna ku koobi kartaa laba ku jibaaran eber waxay noqonaysaa 1 +1 ku dar maxaa soo baxayo 2 saasay butane ku yeelatay 2 isomer hay midda kale aan gudubno inteed u qaad inay la mid tahay maanta inteed waxa u qaadanaa inay la mid tahay 5 haye soo qaado marka qaacidada ku proof garay waxaa leenahay marka 2 oo qaacida ah haye ku jibaaran 5 laga jaray 5 4 +1 haye waxay inta la mid noqonaysaa 5 ka jar laba hortiisa qaad 5 4 ka jar meeqa waa 1 +1 laba hal ku jibaar maxay noqonayaan waa 2 leh bas laba hal ku dar meeqa waay 3 saadarteed waxay ku yeelatana saadarteed waxay ku yeelatay iidan waxay ku yeelatay 3 isomer higsayn aan soo qaadana higsa maxaa waa 6 inteed waxa u qaadanaa iidan 6 aan qaadana waayo soo qaad qaacidada ku proof garay 7 ku jibaaran 6 -4 +1 haye laba isoo qaad 6 ku jibaaran 2 ku jibaaran 6 laga jar 4 +1 6 marka labada isoo qaad 6 ka jar 4 meeqa waa 2 +1 soo dheh kadibna waxaa leenahay 2 ku jibaar meeqa waa 4 hal ku dar meeqa waa 5 saadarteed iidan waxay ku yeelatay 5 ku yeelatay higsayn 5 isomer buug ku raasama 5 saasay lagu keenay hay tan kala soo qaado intaad laakiin bishard waa inaa u qaadataa intaad waa inaa u qaadataa 7 inay la mid tahay maanta u qaada waayo 2 ku jibaaran waxaa leenahay 2 ku jibaaran 2 ku jibaaran aa leenahay 7 laga jaray 4 +1 ayaa leenahay haye isoo qaad marka 2 isoo qaad 7 4 ka jar waa 3 soma +1 2 ku jibaaran 3 meeqa waay 8 waay 8 hal ku dar meeqa waay 9 sidaas ku imaataydan ilaan waatana wuxuu ku leeyahay midaan waxay leedahay fiiri hibtain meeqay leedahay 9 isomer ay leedahay waa kaas hibtain 5 2 3 5 9 waaya marka buug wuxuu ku dhahay qaacidadan waxay ku dhaqan gali kartaa kaliya 7 kaarbo ilaa lambarka 7 oo ah hibtain wixii ka dambeeyay ku dhaqan galaysa waana tana sidaas loo xisaabiyo hadaysan ku dhaqan galin macalno waatana qaabkana loo xisaabiyaa haddii hal mar aan soo qaadano walaalayaal qaacidada soo saan mahayn 2 ku jibaaran n-4 +1 hadir sama +2 ka dhiganayna waa goorme markii aan joogno octane aan joogno waay hay aan fiirina kadib aan soo qaadano qaacidada ku dhaqan galinayna waxaa leenahay 2 ku jibaaran inteed maxaa u qaadanaa 8 laga jaray 4 +1 aa leenahay haye intaas markaan soo qaadan kadib +2 sax +2 dheh waaye haye 2 isoo qaad 8 4 ka jar meeqa waay 8 haddii 4 laga jar waxay noqonaysaa 4 haye 4 2 ku jibaar 4 2 4 ku jibaar meeqa waay 16 hal ku dar 17 way noqonay qalad waa marka waxaa laga dhiganaa marka meeshii +1 ka ahayd waxaa laga dhigtaa +2 marka waxay noqonaysaa marka guud ahaan 2 ku jibaar 4 2 ku dar 18 saas la qaacidada 2 ka dhiganaysaa waayo asaab noo sheegaba wuxuu leeyahay markii qaacidada tan 2 ku jibaar n-4 +1 waxay ku dhaqan kartaa kaarboonka 4 ilaa kaarboonka 7 bas ku dhaqan gali kartaa waa inaad saas fahantaa ka soco intaas kadibna haye tan kale hal mar soo qaadidana n10 haddaan u qaadano ka waran 9 n10 waxay la mid tahay 9 qaacidada maxaa lahaa 2 ku jibaaran n-4 +3 qaacidada ay noqonay ku dhaqan geli marka idana sidoo kale waxaa leenahay 2
hay inteed maxaa u qaadanaa sagaal u qaado laga jaray afar balaas 3 aan leenahay soo qaado kadibna waxaan leenahay sagaal afar ka jar meeqa waay waxaan leenahay waa 5 laba ku jibaaran 5 balaas 3 aan leenahay hay laba 5 ku jibaar meeqa waay 32 saddex ku dar meeqa marka 35 saasay ku imaatay waana tan buugan oo idiga tusaa 32 saddex ku dar meeqa waay 35 waay qaabkaas lagu keenaa marka waxaa leedahay adiga ardayga marka uu sharaxayso waxaa leedahay qaacidada waxay ku dhaqan gali kartaa ilaa inta kale oo sidaas ahna waxaa waaye qaabkaas lagu proof kareena leedahay oo sidaas lagu daraa waayo waxaa la soo ogaaday practical loo saar kuwa la tijaabiyay waxaa la ark markii la tijaabiyay in 17 qaacidada 17 ay keentay laakiin waxaa la soo ogaaday markay baareen dadka chemistiska ah 18 qaab oo kala duwan inay tahay maadaama 18 qaab oo kala duwan ay tahay la soo xaqiijiyay qaacidadan si ugu fududaato qaacidadaas la soo qaato wax yar lagu daraa laga bedbedelaa bas waayo ilaa 18 waa la xaqiijiyo oo naqshad 18 naqshad oo kala duwan lagu soo saaray intaas oo chemistry oo kala duwan lagu soo saaray 35 oo kale 75 oo kale waaye tan kale maanta waxaan qaadanaa inteed inay la mid tahay 10 u qaado waaye soo qaado qaacidada sidana waa qaacdadeeda 2 ku jibaar n negative 4 balaas 11 lana idan qaacidadeeda sidaa waa marka 2 ku jibaaran 10 laga jaray 4 balaas 11 soo qaado 2 ku jibaaran 10 4 ka jar meeqa waa 6 balaas 11 soo qaado marka laba hadii lagu jibaaro 6 meeqay noqonaysaa laba hadii 6 lagu jibaaro waxay noqonaysaa 64 ay noqonaysaa sooma haye soo qaado marka 64 balaas 11 haye soo isku darso marka 64 ku darto 25 saasay ku noqoto dhammaan waxaan rajaynayaa marka waxyaabahan uu book u qoray arday qaab oo fudud inaad ku fahansiin kartid ama qof hadaa u dhigaysid aad ku fahansiin kartid dadka la socdana ardayda inay fahmeen oo qaabkaasi la keenay waayo qaacida waxa la wax aan isbedbedelayna Allah marka qaacidadan tan isbedbedelkeeda way isbedbedelaysaa maadaama marka qaacida rasmi lagu magacaabi karo waxay ku dhaqan galay carbon 4 iyo carbon 7 kaliya inta kale sidaas loo farsameynaa waayo maxaa cadeynaya kuwan inay intaan yihiin waxa cadeynaya markay baareen chemists markay baareen ayaa waxay ku soo haleen 18 mid ay tahay 18 qaab oo kala duwan intaas oo kumanaan chemists 18 qaab oo kala duwan ku xaqiijisay 35 qaab oo kala duwan ku xaqiijisay 15 qaab qaacidada makiinada saadarta marka maadaama qaab ismeedka intaas qof walba isku raaco oo xaqiiqada isku raaco uu yahay oo la proof kare uu yahay naqshada 18 ay keenaysa ay tahay isku raacay ayaa waxa la qaacidadana wax yar lagu daro markii oo lagu proof kareena ilaan sida mid saxda si loo gaar darteed waaya ina intaas fahanteen ayaa rajaynayaa waaya kadibna qaybahaas marka waa qaybihi hadda uu noogu sheekeynayo hadda marka hal su'aal aan inoo diray oo kadibna waxaan aadaynaa draw sawir the 5 isomers of hexane ayaan sawiraynaa kadibna hadda waxaan sawiraynaa 5 isomer oo hexane ay leedahay ayaan sawiraynaa insha Allah waayahay 5tan qaab oo kala duwan ay ku imaan kartaa qudheedo marka sida caadi looga hadlaayo waayahay aan soo qaadan walaalayaal hexane aan soo qaadano insha Allah cashirkeena labaadaan ka dhiganaynaa halkaasaan geenaynaa waayo salaadii subax ayaa fooda igu soo hayso halkaas ayaan geenayaa waa mahadsantiin walaalayaal cashirkeena labaad iyo salaada kadib ayaa inoo ballan wabillahi tawfiiq